maamulka dawladda hoose ee magaalada Gabil ayaa maanta bilaabay olole ballaaran oo kor loogu qaadayo bilicda magaalada kaasi oo ah marmar la dhigaya inta u dhaxaysa wadooyinka iyo dhismayaasha magaalada iyo security light lagu xiriyo dhammaan laamiyada magaalada Mara waxayna maanta ka bilaabeen wajahada hore ee xarunta dawladda hoose oo ay marmar dhigayaan inta u dhaxaysa xarunta iyo wadada laamiga ah ololahan ayaa waxa ka dambeeyay digreetadii uu soo saaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Mudane Cali Maxamed Warraacade ee ahayd kor u qaadista bilicda magaalooyinka sidaasi awgeed maamulka dawladda hoose magaalada Gabil ayaa noqonaya meelihii u horeeyay ee fuliyay digreetada wasiirka waxaana furitaankii ololahan ka soo qayb galay barsaabka gobolka Gabil Yusuf Ibrahim Geedi maayarka magaalada Gabil Shucaib Maxamed Muuse xogayaha fulinta dawladda hoose Gabil Cabdiraxmaan Nuur Abubakar madaxa waaxda fayadhowrka wasaaradda caafimaadka Cabdiwahaab Nakroma xildhibaan Macbuul xildhibaan Faysal Yusuf Tahar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka dalka Finland waxaana ugu horeen halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose Mudane Cabdiraxmaan Nuur Abubakar oo faahfaahin ka bixiyay hawlaha ay wadaan iyo ololahan waxa uu daaran yahay sidoo kale waxa isna halkaasi ka sheegay ahmiyadda ay leedahay wax wada qabsiga iyo bilicda magaalada oo kor loo qaada maayarka magaalada Gabil Mudane Shucaib Maxamed Muuse waxaana ka mid ahaa hadaladoodii uu soo saaray digreetadii uu soo saaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee qorsheedu ahaa in kor loo qaado bilicda magaalooyinka laamiyada oo ee darajada maanta waxaanu degmada Gabil anagu fulinayna digreetadii ka soo baxday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha in kor loo qaado bilicda magaalada Gabil si hadaba dadweyne anagoo horeba u sii bilownay dawlad hoose ahaan markii ay digreetada soo baxdayba laakiin maanta ay tahay munaasabadii loogu talagalay in la bilaabo bilicda magaalada ilaa shalay dawladda hoose ee degmada Gabil waxay ku howlaneed sidii ay u wacyigelin lahayd dadweynaha deegaanka Gabil oo qof wala oo maxay ahayd degmada Gabil degan oo gurigiisa oo dhisa ama ku ooday oo sameeyay inuu oodaasi ka fujiyo arayshada iyo sandaqadaha laga dhisay meelahan ku soo jeeday laamiyada in laga furo qof walibana uu wajahada gurigiisa ilaa ay inta u dhaxaysa laamiga inuu ka dhigo maxay ahayd marmar oo uu gaarsiiyo si ay kor loogu qaado bilicda magaalada waxa kaloo dawlad hoose ahaan qabanada soo iibinay sidii aan u shidi lahayn laydkii security-ga ahaa ee laga shidi lahaa magaalada annaga oo soo iibinay soona diyaarinay laambadihii lagu xidhi lahaa istiraatiijiyada magaalada laguna iftiimin lahaa qof walba muwaadina oo Gabil guri kule oo degan oo gurigiisa la ku jiro isagana waxaan ugu baaqnay oo nimankana ugu baaqaynaa meediyahan oo marayna inuu gurigiisa hortiisa ku taago laambad si ay markaasi ay magaalada ka Gabil saacadaha qaarkood inuu waraabuhu soo galo 7 habeenimo si aynu uga badbaadno oo miyiga iyo magaaladu ay u kala socnaadaan waa inaynu bilicda magaalada soo celin sidaad arkaysaan maanta waqtiga gaaban awgeed waxa weeyaan waxaanu fulinay wareegtadii wasiirka arrimaha gudaha soo saaray ee ahayd in bilicda magaalooyinka maanta loo asteeyay 1 bisha 9 oo ah in guri kasta oo dhagaxa oo maaragtay ku yaala guryaha eeda ah ee Soomaaliland in 3 mitir hore la dhigo marmarka maanta ay ka dhigayno kale in dawladda hoosena ay furo noqoto dawladda hoose ay bilaabaan waxaana waanu bilownay waanu dhamaystirnay waanu dhaqaajinay in ay lagu daydo oo halka laga bilaabaan runtii doonina oo sida maanta dawladda hoose aan uga bilownay hadii guri tahay hadii xafiis dawladda tahay looga bilaabo waxaan ku soo gabagabeeynaa dadka Nakroma sheegayo wax wada qabsigu in wax la wada qabsado ayaa iyo wanaaguna ku jira oo la isku tiirsado wax la wada hagaajiyo waxaan leenahay shingadaha muraayada magaalada ku yaala ee ama chaadka lagu iibiyo meelaha kale ku yaala digniin baanu siinay waqtigaanu siinay inay ka guuraan ninka guri qurux badan dhisanaya ee hortiisina maaragtay qashin ku yaalo in oodu taalo inuu ka qaado ooda oo isagu iska hagaajiyo oo isagu intaan cidiba soo gaarin isagu iska nadiifiyo wawriga qaamuus TV-ga caalamiga Royal TV gobolka Gabil